Burgal Construction Company Bursalax haddii aad maskaxda ku haysiin aad dhisato guri qurux badan amaba umaanka ay ka guuxayo baligaho bishaaro hore u gaar shirkadda dhismaha iyo farsamada wacan ee Burgal Construction Company waxaa dalka daara fooqliyo gudi dhismayaalo bilciroon amaba ugu farsamo wanaagsan waxaa ku farayareystay Burgal Construction Company Bursalax macmiil dookhaaga u sheeg iyaga degdeg ugu dhisayay Burgal Construction Company Bursalax waxaad ka helaysaa dhisida guryo farsamo wanaagsan qurux badan isla markaana aad looga shaqeeyay kuna soo jeedinaya Burgal Construction Company waxa ay la wareegtay kalsoonida macaamiisha kadib markii ay dhistay guryo qurux badan oo tayo wanaagsan haddaba hore u gaar macmiil shirkadda dhismaha ee wacan ee Burgal Construction Company xarunta shirkaddu waxay ku taallaa bartamaha degmada Bursalax ee gobolka Mudug ama bal la xiriir telefoonada shaashada ku qoran haddaba ballanteenu waa Burgal Construction Company Bursalax halkan waxaan soo qaadaynaa sawirro meherado shaqeeya oo ku yaala degmada Bursalax sida bakhaarka Burgal Store oo ku yaala magaalada bartamaheeda waa bakhaarka ugu horeeyay magaalada bakhaarka ugu weyn adeegyada uu bixiyo waxaa ka mid ah sibirka looxa jiingada nuuradda safiitada ayuu nooca rinjiga shaqooyinka uu qabto waxaa ka mid ah guryo dhisaa qandaraasyo ku dhisaa fiisibilaahi kuwa ku dhisaa sawirrada uu dhisay iyo qaababka uu dhisana waa sawirradooda waa tusi doonaa halkan hadda aan joogno waa geerishkii albaabada iyo ganjeelada loogu samayn jiray waa qayb kale oo ka tirsan bakhaarka macnaha waxayna ka tirsan tahay bakhaarka Burgal oo baraanji ka mid ah bakhaarka weeye shirkadda halkan waxaa ka shaqeeya shaqaalo 5 nin ah 5 nin oo hadda ku haya oo sawirradooda qaar arki doontaan shaqadaasi halkaasay maraysaa guryahan dhisnay iyo qaabka aan u dhisnay naqshadana waa idin tusaynaa waxaa jira qol weyn oo kayda oo asagana aan tegi doono oo aan tusi doono oo alaabtii dhismaha iyo tii alxanka labaduba yaalaan gaarigii oo u shaqeynaya oo si qaybliya dadka ugu shaqeynaya saacad walba iyo goor walba hawlahaasaa ka mid ah hawlahan qabanno dadweynaha sharafta leh waxaan ugu baaqayaa inay arrintaas ka qayb qaataan qofkii dhismo u baahan kii wax gadasho u baahan ka faa'iideystaan macnaha jaaniskooda ay kaga faa'iideystaan